الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan salaamaya salaanka gadaal maanta waxa sharaf weyn ah inaan ka hadlo arinta ku saabsan aqoonsiga cusub ee loo sameeyay ummadda Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool iyo kuwa dibadda ku nool muwaadiniinta intaba in ay yeeshaan aqoonsi cusub kaarka aqoonsiga ama warqadda aqoonsiga cusub oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay leedahay muwaadiniinteeda oo dhan ay ku register gareysan yihiin mudane waxaan idinku salaamay salaantaas kadib maanta waxay inoo tahay maalintaas weyn muwaadin kasta Soomaaliyeed wuxuu yeelanayaa warqad aqoonsi ah lambar aqoonsi ah oo loo yaqaano oo maalinta uu kaarka qaata aqoonsiga ilaa maalinta uu ka dhimanayo macaamilkiisa adduunyada oo dhan ay ku dhisnaa doonto aqoonsi la'aantu dhib badan ayay nagu haysay maanta Soomaaliya waxyaabaha duruufaha noogu adag ee noogu dhibka badan waa duruufaha amniga oo dambiyada argagixisada iyo khawaarijtu ay ku galaan dalka haddaan midaal u soo qaadno baabuura la qarxiyay baabuurkii la qarxiyay iska lahay tixraaciisa ma naqaano nin khawaarij oo argagixisa ayaa lacag dirtay qofkii lacagta diratay helideedu waa dhib badan tahay waad ogtihiin bangiyadeena xawaaladaheena dhaqaalaha dhinaciisa waxa ka haysto dhamaanna waxay u haystaan waxay tahay arrimo amniga la xiriira oo ama dalalkii dibadda ahay ee xawaaladaha laga soo diray amnigooda loo baqayo ama dalalka la keenayo amnigooda loo baqayo sidaas daraadeed arinta haysashada warqad aqoonsi oo heer qaran ah oo la aqoonsan yahay waxay amniga ayay waxay u tahay udub dhaxaad sugidda amniga yani dhinac walba qofka dambiilaha ah in la aqoonsado haddii qof la qabto la aqoonsado inuu qofkii yahay inuu qof kale yahay haddii qof meeda loo yimaado oo aanan la garanayn wejigiisiina ama maqan yahay xataa marmarka qaar ama shil ku dhacayo dhibaato ay haysato si loo aqoonsado yuu ahaa qofkan marmarka qaarkood ay adkaanayso haddii maxaan ku irahdaye nin aan Soomaali ahayn Soomaalinimadu qof kasta oo midabkeena leh afka Soomaaligana ku hadlaahay macnaheedu ma inuu Soomaali yahay midabkeena ummada leh noo qaab eg aan laga aqoonin ayaa adduunyada ku nool darisna la ah meel naga fogfog ku nool afkana luqadana waa la bartaa waa la baran karaa si caadi ah ayaa loo baran karaa laakiin intaasi waa in wax marqaati kacayo oo dhahayo waa Soomaali qofkan waa in la helaa marka uu jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muwaadin inuu yahay oo u diiwaan gashan yahay oo warqadda aqoonsiga ee jamhuuriyadda uu qaranka uu sito qofkaasi waa muwaadin laakiin hadduu doono hanoo ekaado oo af Soomaaliga ha ku hadlo laakiin maalina la gaaraya warqadaas haddaanu wadanin la yiraahdo qofkani muwaadin ma aha amnigeena sugistiisa sidaas ayuu muhiim ugu yahay yaa khaldan yaa qalloocan yaa waxaysan bangiyadeena lacag dibadda uma diri karaan lacagama marka toos looguma soo diri karo waxaa loogu soo diri laayay adduunyada wixii ay ku heshiisay oo nidaam ahay oo amniga caalamiga iyo amniga ummadaha lagu sugayay ayaa noo dhameystirneen waxaa la yiraahdo KYC ama know your customer macmiilkaaga aqoon qof aadan aqoonin hala macaamilin qof aan la aqoon hala macaamilin akoon ha u furin telefoon ha siinin baasaboor ha siinin shati ha siinin ha u yeelin waxaasoo dhan adduunyadu ay ku dhaqanta aanan anagu ku dhaqmin Soomaali hadana waa wadada u socota ee dawladnimadeena iyo gob sovereign inaan nahay waxyaabaha tilmaamaya ayay ka mid tahay la dagaalanka musuqmaasuqa raadraac inuu yeesho qofka musuqmaasuqa sameynaya qofka hantida dawladda dhacaya qofka muxuu ahay shaqaalaha dawladda laaluushe qofka inta ka baxaya dhammaan inuu raadraac leeyahay oo maxaan ku iraayaa oo diiwaan gashan yahay oo muxuu ahay danabaysan yahay digitalization waxa loo danabaysan yahay oo la raad raaci karo oo fartiisa hadii la helo ishiisa hadii la helo wajigiisa hadii la helo dhammaan la gaari doono berri in la raad raaco oo nidaamka xukunka casriga ah ee danabaysan ee loo yaqaano e-governance afka qalaad lagu yiraahdo dadku in aanay meelaha qaarkood aanay u baahan saf inay u soo galaan adeeg ay rabeen oo dadku adeegaasi haddii uu laptop haysto gurigiisa joogo uu ku heli karo adeegaasi asigoo aan safki soo gelin laakiin adeegaasi wuxuu yaqaanaa aqoonsi uu yaqaanaa
reer hebel ma yaqaan deegaan hebel ma yaqaan koox hebel ma yaqaan aqoonsi uu yaqaana aqoonsigaas ayaan hadhow raadraaca yeelanayo oo qofka Soomaaliga ee maxaan ku radaa adeegaas loo qabtay qaadanayo waxa uu ku xirnaanaya aqoonsiga in qofka uu horumaro oo uu la macaamilo nidaamka dawliga ee dalka ka jiro aqoonsigaas wuxuu saacidayaa qofka in laga aqbalo inuu muwaadin Soomaaliyeed noqdo kadibna inuu muwaadin caalami ah noqdo waxa sahlaya waxay tahay aqoonsigaas maalintaad aqoonsiga qaadato ee numberka intaas ka kooban aad qaadato ilaa iyo maalinta aad ka dhimanaysaa waa lagu yaqaanaa qof la yaqaanaa haddaad dhimato tii rabbi ku timaadana waxaa lagu aqoonsanayaa qof geeriyooday oo dunida ka tegay inaad tahay si walba nolosha casriga ee qarniga 21aad walaalaha Soomaaliyeedow meel kastoo aad joogtaan lagama maarmo aqoonsiga aan yeelano aqoonsiga dhammaanteen aan u soo degdegno inaan aqoonsiga yeelano oo aan qaadano yaan laga caajisin yaana ahaan wax lagu qasbay aqoonsiga nolosha casriga u baahan si aad muwaadin casri ah oo dunida la socda aad u noqoto dalkiisana caawinayo oo dunidu aanay faraha ku fiiqfiiqayn oo aanay eedeynin inaan noqotid intaas kadib waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan halkan ka ammaano kana hambalyo xukuumadda federaalka Soomaaliya guud ahaanteed gaar ahaan hay'adan shaqadaas adeegaas noo hayso runtii meel cidlaa oo dhib badan oo waxba ka jirin ayay ka soo bilaabeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bogaadiyo hambaliyeeyo maxaan ku iraahdaa aan dhiirigeliyo shaqada ay hayaan waa shaqo adag shaqo maanta la bilaabayo inay ku dhiiradaan hore u wadaan adeegana ay baahiyaan oo qofkii meelaan aqoonsi ka qaataan waaye waa gaari waaye meeshii aqoonsiga laga qaadanayay inaanu dhihin qof kastoo Soomaali ah qaadashada aqoonsiga meel uu gaaro uu tagi karo oo muxuu ahay ku waxay intaas kadib waxaan rabaa inaan si guud ugu mahad celiyo saaxiibada caalamka ee dawladda Soomaaliya ka saaciday in ay hesho service adeegan inay dadka Soomaaliyeed helaan dawladuna ay bixiso wadamo badan uu kaalmeeyo waa mahadsan si gaar ah waxaan rabaa inaan u magac dhabo dalka walaalaheena ah ee Jamhuuriyadda Islaamka ee Pakistan oo ayadu nagu saaciday aqoon qalab maxaan ku raadey software oo qarashkooda iyo xoolahooda ku bixiyeen si ummadda Soomaaliyeed aqoonsigaas u hesho waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsantihiin adinkana ajri xasanaad Allah idinka siiyo ummadda Soomaaliyeed adeegii waa kanaaye ha ka soo daahina u soo dhaqsada aqoonsigu waa amni aqoonsigu waa dhaqaale aqoonsigu waa adeeg aqoonsigu waa tacliin aqoonsigu waa caafimaad aqoonsigu waa wax kasta oo qofka bini aadamka ee qarniga 21aad nool ee casriga ah furihii oo waxaas oo dhan uu ku furanayo waay furo la'aan ha soo istaagin albaabka xiran oo casri ah aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh